kulankani oo ka tirsanaa koobka Sakafa Senior Challenge Cup isla mar ahaantaani ka dhacay garoonka KCC Stadium ee magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa uu maanta dhexmaray ciyaartoyda xulka Soomaaliya iyo xulka Djibouti ayadoo gabi ahaanba uu ku soo gabagaboobay mid eber iyo eber ah labada dhinac la ismari waayay labada xul ayaa soo bandhigay qaybtii hore ciyaarta fursado cajiib ah ay labada dhinacba ay sameeyeen walow ciyaarta qaybteedii labaad markii la isku soo laabtay garoonka uu qabsaday roob aad u xoog badan gabi ahaanba ka dhigay garoonka mid aad u qabow ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay intay ciyaarta socotay ciyaar cajiib ah walow ciyaartan ay ahayd mid aad u xamaasad badan ay soo buux dhaafiyeen garoonka taageerayaal aad u fara badan oo Soomaali ah faraha qaranka Soomaaliyeed ayaa isbedel ku sameeyay shaxdii uu ku soo galay ciyaaryahan Liibaan oo watay lambarka 8 ayaa waxa lagu bedelay ciyaaryahan Faris oo watay nambarka 17 u watay xulka qaranka Soomaaliyeed ayaa firfircooni iyo dadaal la soo galay garoonka sidoo kale tababaraha xulka qaranka Soomaaliyeed ayaa mar kale soo geliyay ciyaaryahan Xasan Nuur Geesi Xasaasi oo nambarka 6 u watay xulka qaranka Soomaaliyeed waxaana lagu bedelay ciyaaryahan Xuseen oo xulka qaranka u watay nambarka 8 ciyaartan ayaa ku soo gabagabowday natiijo eber iyo eber ah oo labada dhinac la ismari waayay ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed ayaa farxad iyo yeedidiilo u muujiyay taageerayaashooda garoonka ku sugnaa markii ay soo gabagabowday ciyaarta waxa inoo suurta gashay inaan wareysi la yeelano goolhayaha xulka qaranka Soomaaliyeed goolhaye Saciid Yemani wallahi waa ku dhawahay TV-ga والله بربر دعانو أقلني الحمد لله إلهي أن يسور تقلي إن شاء الله جيم كلا رجينا إنا نقول كنا دون إن شاء الله والله توبر أبدا صوت ماني إن شاء الله وحرجينا إنا نقول في عن كنا دون دركينا سومالي نكبر شعب سومالي وحاول شيء إنا ملور برتاجران إن شاء الله بوشري والما دونتا والله عيارتوي والبوا عيارتوي وكل سيما نويين إن شاء الله وحرجينا إنا كوانا إنا نقول كنا دون كويدا وكلنا إنا نقول كنا دون إن شاء الله عبدوهاب إبراهيم عبدواحد TV كوفر قلبيت مقالة كمبالا عاصمة دلك يوغندا.